Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaarteena qiimaha iyo qaayaha badan kusoo dhowaada kanaalka Axmed Kediye. Haddii aadan horay ugu jirin fadlan subscribe dheh, aad ayaad u mahadsan tahay. Halkan caawa waxaan idinkugu soo gudbinayaa tahniyada hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ee curashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo af Soomaali ah. Merkel sidii lagu yaqaanayba caawa waxay website-ka xukuumadda Jarmalka muslimiinta dalkan ugu hambaliyeysay curashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxayna muslimiinta ugu hambaliyeysay erayadan soo socda ee aan af Soomaali ahaanta u tarjumay. Merkel waxay tiri: muslimiinta iyo muslimaadka qaaliga ahow, bisha Ramadaan waa bil ta'amul iyo bil isu soo dhawaasho iyo kalgacayl. Micnaha isu soo dhawaasho uu qofku dadka kale u dhawaanayo, gaar ahaanna caawinta dadka baahan, waana waqti aad kulantaan muslimiinta iyo muslimaadkow. Sidoo kale afurka jamaaciga ahna wuxuu mar walba ka dhigan yahay fursad dad diimo kale haysta xataa lagula kulmo. Taasina waa calaamad muhiim ah oo si gaar ah wadajirkeena bulsho u muujinaysa. Laakiin sanadkan arrimahaasi dhan suuragal ma ahan. Cudurka coronavirus ayaa nagu qasbaya inaan ka joogno caadooyinkii, dhaqamadii, dabaaldegyadii, isu imaashiyadii iyo wax walbo dhaqamadiin gudasho ah oo aan caadaysanay. Muslimiinta iyo muslimaadka dalkeena iyo muslimiinta dunida gees walbay joogaan waxay hadda u jeedaan bil Ramadaan oo duruufo aanan caadi ahayn oo horay aanan loo arkin in lagu jiro. Sidaa daraadeed waxaan idin rajaynayaa adinka iyo qoysaskiinaba waqti nabadaysan, barakeysan, sidoo kalena caafimaad badan. Intaasi ayay ku eg tahay tahniyada Merkel ee muslimiinta dalka Jarmalka degan ay hawada u soo marisay. Waa Axmed Kediye oo tahniyadaasi af Jarmalka ahayd idin soo tarjumay, sidoo kalena idin la wadaagay. Aniguna Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay dhammaantiin walaalayaal meel walba dalkan Jarmalka iyo dunida inteeda kaleba ka joogtaan. Waa Axmed Kediye oo mar kale idin wada salaamaya. Ciao.